السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرن جنال كمركز السود وهذا أدي هذا ومهسنتين مانت وأحد سجال يتوبنك بشر كوباد جانوري سنة كلابد كون يشان يلا باتنك تيك توك هودا أيو دب وجسول لابتي كدي مركي حالي مريكان كاللجا حري سببته وصول لابتو وحيتاي ترام قرال وكسو قري برتيس تروس سوشيال كا تيك توك نوا يوم هاد عليين ترام قرال كاسي وصو قري إنه تيك توك هودا دب وجسول لابتو arrimahaasi ayaan rabaa inaan idin la wadaago maxay tahay waxyaabaha Trump uu soo jeedinayo si uu TikTok Mareykanka uga shaqeeyo maxayse tahay sababta hadalka Trump dartiis TikTok uu dib ugu soo laabtay Mareykanka isticmaalkiisana waan idin la wadaagaya heshiiskii xabajoojinta Israa'iil iyo Xamaas ay kala saxiixdeen oo dhaqan galay iyo Xamaas oo maxaabiistii u horeysay soo deysay laakiin si la yaab leh oo awoodooda ay banaanka soo dhigayaan ay u soo daayeen Israa'iil oo la filaya sidoo kalena iyaduna in gargaarka ay u ogolaato Gaza maxaabiis Falastiiniyiin ah ay gelinka dambe ee maanta ay soo daayso sidoo kale waan idin la wadaagaya soo dhawaada TikTok xalay inta aan bal 6 saac la gaarin oo taariikhdu 19 aysan noqon ayaa waxa ay bilaabeen in dadka qoraal ay u soo saaraan shaashada ay leeyihiin TikTok hawada waa uu ka baxaya Mareykanka sharcigii ayaan dhaqan gelinaynaa marka laba qoraal oo kala duwan ayay soo saareen qoraaladina waan idin tusi doonaa waxyaabaha ku qoran waan idin aqrinaya kadibna hadalka Trump ee suurad galiyay in TikTok uu hawada dib ugu soo laabto iyo maxay tahay waxyaabaha uu soo jeedinayo haddii TikTok la doonayo in Mareykanka uu ka sii shaqeeyana sidoo kale waan idin la wadaagaya markii hore TikTok inta aan la gaarin ba 6 saac 4 saac iyo barhabinimo xalay markay ahayd ayaa waxa ay soo qoreen important update from TikTok update muhiima oo idinka imaanaya TikTok ayay soo qoreen waxay yiraahdeen waxaan ka shalaynaynaa in sharci Mareykanka ee mamnuucaya TikTok uu dhaqan galay oo January 19 oo xalay ahayd uu dhaqan galayo sida darteed waxaan ku qasbanahay in aan adeegyadeena si kumeel gaar ah aan looga helaynin Mareykanka waxay yiraahdeen waxaan ka shaqeynaynaa sidii dib loogu soo celin lahaa adeegyadii aan dadka Mareykanka ahaan siin jirnay sida ugu dhaqsiyaha badan waan idinka mahad celinaynaa taageeradiina nala socda qoraalka koobaad oo TikTok ay soo dhigeen sidaasi ayuu ahaa markii 6 saac la gaaray oo taariikhdu 19 noqotayna sidan ayay soo qoreen sorry waa ka xunnahay TikTok hadda kama helaysid Mareykanka hadda ma helaysid macnaha oo Mareykanka gudihiisa kama helaysid ay dhaheen marka waxay yiraahdeen sharci TikTok ka mamnuucaya Mareykanka ayaa dhaqan galay oo Mareykanka ka dhaqan galay nasiib darro waxay yiraahdeen taasi macnaheedu waxay tahay in TikTok hadda aadan heli karin oo aadan Mareykanka ka daawan karin laakiin waxay yiraahdeen waxaa nasiib wanaag ah in madaxweyne Trump uu cadeeyay in uu ka shaqeyn doono nagala shaqeyn doono xal ah sidii dib loogu soo celin lahaa TikTok waxay yiraahdeen once he takes office marka uu xafiiska la wareego marka fadlan nala socda markaasi ayaa u dambeysay TikTok in dadka Mareykanka joogo aysan wax muuqaal ka daawan karin oo marka ay furaanba uu qoraalkaasi meesha u soo fuulayo muddo saacadaha ayuu xirnaa ilaa iyo hadda 3 saacadood ka hor Trump bartiisa Truth Social-ka qoraal uu soo geliyay ayaa waxa ay suura gelisay in TikTok uu hawada dib ugu soo laabto haddaba qoraalkaasi muxuu yahay Trump muxuu ka yiri hay'adaha ama shirkadaha dhaqan gelinaya sharcigii dawladda Mareykanka ee meel marisay waxaan ognahay sharcigaasi labada aqal ayaa meel mariyay waliba cod aqlabiyada Republicaanka iyo Dimuqraadiyiinta isku raaceen madaxweyne Joe Biden bishii afraad ayuu saxiixay sharcigaasi ayaa waxa uu dhigayay in TikTok 19 bishan January oo maanta ah laga mamnuuco haddii shirkadda iska leh ee ByteDance aysan ka iibin shirkad Mareykan laga leeyahay iibintii ma aysan dhicin 170 milyan dad ka badan oo Mareykan isticmaala 7 milyan oo ganacsiyana sidoo kale waa isticmaalaan haddaba madaxweynaha maalinta bariya xilka la wareegay ee Donald J Trump ayaa qoraalkan waxa uu ku soo qoray bartiisa Truth Social waana qoraalka suura galiyay in saacada ka hor TikTok uu hawada dib ugu soo laabto oo Mareykanka hadda laga isticmaali karo walow dadka qaarkood wali aysan isticmaali karin laakiin si tartiib ah ayay u isticmaali doonaan oo ugu furmi doonaan laakiin inta badan dadka hadda adeega TikTok aad ayay u isticmaali karaan waxa uu Trump qoraalkiisa uu ku bilaabay waxaan weydiisanayaa kambaniyada ogolaaday in TikTok uu hawada ka baxo in aan soo saari doono
wareegto maalinta berri ah oo isniina marka uu xilka la wareego waxaanan ku kordhinayaa uu yiri wareegtadaasi waqtiga uu TikTok uu sii shaqayn karo isla markaana sharciga mamnuucayo uusan dhaqan geli karin. Trump waxa uu haystaa 90 maalmood oo ma 3 bilood uu ku kordhin karo waqtiga wada xaajoodka iibsashada TikTok uu soconayo. Marka wareegtada uu soo saari doono sidaas ayay noqon doontaa maalinta berri ah. Sidaa darteed waxa uu yiri so we can make a deal waxaan si aan u sameeyno heshiis lagu difaacayo ammaankeena qaranka sidoo kalena aan ku xaqiijinayno in aysan wax mas'uuliyad darro haysan qaadan doonin ama wax ganaax aysan la kulmi doonin shirkadaha gacanta ka geystay inuu TikTok hawada ka baxo ka hor inta uusan amarkaygu soo bixin. Marka waxa uu leeyahay shirkadaha Mareykanka sida Apple ama Android ama shirkadda Oracle oo xogta TikTok ee Mareykanka kaydisa wax ganaaxa lama kulmi doonaan ayuu yiri inta yar uu hawada ka maqnaa TikTok sidaa darteed waa inay fasaxaan. Marka hadalkiisaas Trump oo qoraalkiisaas uu ku soo qoray bartiisa Truth Social waxay sababtay in TikTok uu hawada dib ugu soo laabto. Marka waxa uu yiri dadka Mareykanka ah waxa ay u qalmaan in ay daawadaan xafladeeda xiisaha badan ee dhaarinta ee maalinta berri ah iyo sidoo kale dhacdooyinka kale iyo wada hadalka kale. Marka waxa uu leeyahay TikTok waxay gacan ka geysanaysaa in dadka Mareykanka ay daawadaan xafladeeda xiisaha badan ee dhaarinta ee maalinta berri ah dhacayso. Sidaas darteed waa in TikTok la soo fasaxa. Marka maxay tahay waxyaabaha uu soo jeedinayo Trump oo uu doonayo TikTok mustaqbalka inuu Mareykanka uga sii shaqeeyo? Trump waxa uu yiri waxaan jeclaan lahaa in Mareykanku uu yeesho 50% milkiyadda TikTok. Waxa uu sheegay sidoo kale in shirkadda iska leh TikTok iyo shirkad kale oo Mareykana 50% ay kala yeeshaan oo si wada jir ah loo maamulo. Wuxuu yiri sameynta arrintaasi waxay badbaadinaysaa TikTok waxay sidoo kalena ay ku sii haynaysaa gacmo wanaagsan TikTok taasi u ogolaanaysa inuu Mareykanka ka sii shaqeeyo. Marka waxa uu yiri iyadoo Mareykanku uusan ogolaashahaasi uusan bixin TikTok ma jiri doono sidoo kalena ogolaashahaasi Mareykanka isagoo aan bixin waxa halkaasi ku qasaari doona lacag billions of dollars haddii aysan trillions aysan ahayn. Sidaa darteed waxa uu yiri aniga fikrikeyga hordhac ah waxa uu yahay in si wada jir ah loo yeesho TikTok oo shirkadda hadda iska leh ee ByteDance iyo dad kale oo Mareykana ay si wada jir ah ay u yeeshaan 50% la kala yeesho. Waxa uu yiri haddii sidaas la sameeyo macnaheedu waxa ay tahay shirkadda iibsanaysana inaga ayaa dooranayna dhinaca Mareykanka shirkadda iibsanaysa waxa uu yiri inaga ayaa dooranayna. Marka Trump waxa uu soo jeedinayaa shirkadda ByteDance maadaama aysan doonayn in gabi ahaanba TikTok ay ka iibiso shirkad Mareykana waxa uu leeyahay ByteDance 50% lahaada shirkad Mareykanana 50% ay iibsanaysaa. Sidaas darteed Mareykanku waa ku sii uga sii shaqayn karaa TikTok isla markaana ammaankeena qaranka waa difaacan karnaa. Dawladdu waa tii ku andacoonaysay oo xitaa maxkamadda sare jimcihii go'aankeedii soo saartay oo leedahay xogta dadka Mareykanka isticmaala TikTok ee waxa lala wadaagayaa ama shirkadda ByteDance ay la wadaagaysaa dawladda shuuciga ee Shiinaha. TikTokna waxay yiraahdeen xorriyatul qowlka ayaa lagu xadgudbaya. Haddaba Trump markii qoraalkaasi uu soo qoray kadib TikTokna la soo fasaxay shirkadda TikTok iyaduna qoraalkan ay soo saartay ay leedahay waan uga mahadcelinayaa madaxweyne Trump inuu yiri shirkadaha gacanta ka geystay TikTok inuu xirmo wax ganaaxa lama kulmi doonaan 170 milyan ee Mareykanka ka badan isticmaala TikTok iyo 7 milyan ee ganacsiyada ku xayeysiista waxay leeyihiin waan ku faraxsanahay inuu TikTok hawada dib ugu soo laabtay madaxweyne Trump ayna arrintaas uga mahadcelinayaan. Marka sababta TikTok uu kugu soo laabtay oo hadda aad ku daawanayso Trump ayaa iska leh waxana uu qoraalkaasi markii uu soo qoray kadib ayaa TikTok uu hawada dib ugu soo laabtay. Marka wayna arki doonaa sidoo kalena iibsigaasi iyo 50% sida loo kala lahaan doono TikTok iyo sida ay ku dhaqan gali doonto. Trump berri ayuu xilka la wareegaya oo la dhaarin doona. dhinaca kalena heshiiska xabad joojinta oo Israa'iil iyo Xamaas ay gaareen ayaa maanta dhaqan galay walow Israa'iil leeyahay duqeyn ayay geysatay saakadii hore intuusan heshiis ku dhaqan galin oo dad shacab ah ay ku dishay laakiin maxaabiis isweydaarsigii u horeeyay ayaa dhacay. Xamaas ayaa waxa ay soo deysay 3 maxaabiis oo haweena oo kuwan idin muuqda. Haweenkaasi ayaa waxa lagu wareejiyay ciidamada militariga ee Israa'iil kadibna hooyooyinkooda oo sugaya ayaa loo geeyay laakiin Xamaas markay ay soo dhiibaysay qaab awood ay ku dheehan tahay ay u soo dhiibtay waxaana la arkayay iyagoo gawaari wata oo hubeysan oo maskaraati xiran in la qeyrta cas ay ku wareejiyeen saddexdaasi haweenka ay u horeysay. Heshiiskan xabad joojinta 3 waji ayuu noqon doonaa. Wajiga koobaad waxa uu toddobaad kasta waxa ay
soo dhiibi doonaan 3 maxbuus ilaa iyo 33 maxbuus la soo daayo 16 bilood ayaa dagaalkan u socday waxaana heshiiskan xabad joojinta gacan ka geystay dowladaha Qatar Mareykanka iyo sidoo kale Masar ayaa leeyahay waxaana sidoo kalena maxaabiistii ugu horeysay ee Falastiiniyiinta ay Israa'iil soo deyn doontaa gelinka dambe ee maanta iyadoo u ogolaan doonta in gargaar bini'aadanimo uu galo marinka Gaza marka dabaaldegyo waxay ka soconayaan marinka Gaza iyo waliba dhinaca Israa'iiliyiinta oo loogu dabaaldegayo heshiiskan xabad joojinta iyo sidoo kalena maxaabiis isdhaafsiga waxyaabaha kale ee soo kordho haddii aan leedmo waa idinla soo socodsiin doonaa aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkan cilmi waaro idinla sida iyo nabadgelyo